Assalaamu calaykum daawadayaal. Waxay yiraahdeen raggii hore fardaha dheer ayaa fagaaraha isku arkaan. Waxaanan muuqaalkan ku soo qaadanaynaa 5 faras oo aanad rumaysan karin inay jiraan. Intaynaan muuqaalka bilaabin, fadlan walaal waxaan kaa codsanaynaa inaad fiidiyogan like saartid, subscribe-na tiraahdo haddaad channelka ku cusub tahay. Faraska Beershiyaanka ah, Al-Hisan al-Farisi, waxa uu muuqdaa faraskana mid buuran ama qara weyn, laakiin uu qurux badan yahay. Xilliyadii horena waxa uu gaar ahaa inuu gaashaamo ama qaadanin askari ah oo xiran dirac bir ah. Maantana waa la mid oo oodiyo qodaxda kama gudo, waana faras dheereeya. Waxaana loo adeegsadaa tartamada aflaanta iyo sidoo kale xafladaha. Waxaanu asal ahaan ka soo jeedaa Friesland iyo Holland. Inta badanna waxa uu leeyahay midabka madowga, laakiin waa laga heli karaa midabkan hortiina ka muuqda, اللون الكستنائي chestnut color. waxaanu leeyahay dhaga dhaadheer iyo timo jilicsan oo uu ku leeyahay lugaha. midabkiisa iyo muuqiisa dheerna waxa uu ka dhigay inuu ka soo muuqdo aflaanta badana. Faraska Marwari waa nooc ka gaar ah fardaha oo Hindiya laga helo. waxaanu leeyahay dhaga qurux badan, waxaana laga heli karaa midab kasta, laakiin ka ugu caansani waa kan. noocyada cadaanka ayna waxa uu xisaabsan yahay asbaabo diimeed, halka ka madowna uu uga dhigan yahay nasiib xumo, maxaa yeelay waxa uu agtooda ka matalaa mugdiga iyo geerida. Faraskan Marwarina waxa loo adeegsadaa bandhigyada, safarka, xafladaha iyo ujeedooyin diimo. loomana adeegsado ciidamada iyo dagaalka, laakiin waxa loo isticmaalaa ciyaarta boolo. Faraska Chepsi cimrigiisu celcelis ahaan waa 20 ilaa 25, culayskiisuna waa 635 kilogram. waxaana magacyo u bixiyay 200 oo ka soo jeeda Britain iyo Ireland, iyagoo u yaqaanay Gypsy Cab iyo Tinkerhorn. waxaanu leeyahay midabo isku jira oo kala duwan muuqaal ahaan, iyagoo barkood ku leh timo lugaha iyo xagga dambe ee dibka. sidoo kalena waxa uu timo dheer ku leeyahay xagga sare ee raqabada, lugihiisa dambana aad bay u adag yihiin. ka taariikh ahaanna waxa uu ku badnaa oo isticmaali jiray reer Yurub. Mahrul Falabella waxa uu asal ahaan ka soo jeedaa faraskan Argentina. waxaanu dhererkiisu gaarayaa inta u dhaxaysa 70 ilaa 60 mitir. jirkiisuna wuu yar yahay oo uu gaaban yahay. waxa uu leeyahay dhogor adag iyo qoor weyn oo waxaad moodaysaa dameer markaad aragtid duquntiisa iyo timihiisa. lama isticmaalana oo xajmigiisa aad u yar, si sahlanna waxay awooddaa carruurtu inay u fusho. Kali Horse Al-Hisan al-Mujacad waxaa laga heli karaa midab kasta iyo qaab kasta. waxa uu khaaska ku yahay waa dhogortiisa isku urursan. mararka qaarna waxa uu bataa midabkan, laakiin waxaa jira iyana qaar wada madow iyo qaar kaloo ku leh dhibcamad madow qaarka dambe. waxaanu ka mid yahay fardaha ugu maskaxda wacan hadday noqoto dhinac walba, taas oo keentay in si dhib yar loo tababaro. haddaad jeceshahayna kaxaynta ama fuulidda fardaha, kan waa doorashada ugu fiican. waxay ka helaan dadka agagaarkooda ka dhowdhow iyagoon ku xadgudbayn. warka kale wanaagsan waxa uu yahay in fardaha qaarkood ay ka xasaasiyoodaan ama diidaan taabashada qof ilaa qof ay garanayaan mooyee, halka uu faraskani ka duwan yahay oo isagoo aan ku garanayn inaad fuuli kartid ama taaban